dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum. Waxaan halkan ku soo gudbinaynaa qiso aad u qurux badan oo yar balse aad ka faa'iidaysid waxyaalo aad u fara badan. qisadan ayaa waxay nooga timid madaxweynihii hore ee dalka Hindiya, Dr. Abdulkalaam. Allah u naxariistay, wuxuu ahaa madaxweyne muslim ah. Wuxuu yiri sida tan: waagii aan yaraa, hooyaday ayaa cuntada noo karin jirtay. Habeen gaar ah ayay casho ay samaysay miiska u saartay aabe. Waxay ahayd saxan subsi ah. Subsi yacni waxay u yaqaanaan maraq iyo rooti aad u gubtay. Waxaan sugayay inuu ogaado aabe oo wax ka yiraahdo, laakiin aabe wuu cunay rootigii. Wuxuuna i weydiiyey siduu ahaa iskoolkaygii. Ma xasuusto waxaan u sheegay habeenka, balse waxaan xasuustaa hooyo oo aabe ka raali gelinaysa rootiga gubtay. Marna ma ilaawayo waxa uu ku yiri. Wuxuu ku yiri sidaan: gacaliso, waan jecelahay rootiga gubtay. Habeenka intaan aabe dhunkaday ayaan weydiiyey inuu jecel yahay rootiga gubtay. Gacmihiisa intuu igu soo qabtay ayuu igu yiri sidaan: hooyada maanta oo dhan ayay si adag u shaqaynaysay, aad bayna u daalayneed. Rootiga gubtay cidna ma wax yeelayo, laakiin erayada aadka u daran ee naxariis la'aanta ah ayaa waxyeelo geysta. Wiilkaygiiow, nolosha waxaa ka buuxa waxyaabo aan dhammaystirnayn. Anigu ma ihi qofka ugu wanaagsan, wax kastana ma aqaan. Waxbaan hilmaamaa marmar sida qof kasta oo kale. Waxa uu waayuhu i baray in la aqbalo qof kasta cilladiisa, lana doorto in loo dabaaldego lana dhiirigeliyo xiriirka. Noloshu way gaaban tahay inaad hurdada ka soo toosto adigoo qoomamaynaya. Jeclow dadka kuula dhaqma si wanaagsan. U naxariiso oo cafi dadka kuula dhaqma sida xun. Ha ku degdegin inaad qof dhaleecayso sababtoo ah ma sameeyo waxa aad samayso. Umana fikiro sida aad u fikirto. Waxaa jirtay xilli aad adiguba aadan garanayn waxa aad hadda taqaano. Hadalkiisii ayuu sidaas iigu soo gabagabeeyey ayuu yiri madaxweynihii hore ee Dr. Abdulkalaam. Haddaba maxaa qisadan nooga baxaya oo aad meeshan ka aragtay? Waxaan filayaa inay qisadan tahay mid yar oo aad u qurux badan. Waxaad ka fahantay qisadan noogu soo qor dhanka hoose ee commentiga ah.